وحان لا يمدحوي دفاع قرنكم وبقول يكنتو كيلومتر مصوب حبا دفاع قرنكم صدح بقول سركاني عيدان إن لقاها يستوم حافيز سمية شعر وينها دقي مدى سلحلي دمانتي سيدوني هاي وحان وجهو jeedinayaa mahadnaq ballaaran oo aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca wafdiga aan hogaaminayaba sidii la yaabka lahayd ee farxadda lahayd ee kalgacalka lahayd ee mugga lahayd ee muuqaalka lahayd aad noo soo dhaweyseen aad baa u mahadsantihin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan salaadiinta madaxda dhaqanka oo oday u yahay suldaan daawuud suldaan maxamed suldaan cabdilqaadir iyo dhammaan salaadiinta kale cuqaasha aldoorka hablaha dhallinyarada iyo waayeelka dhammaantiin mar labaad waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan halkan uga mahadnaqayaa suldaan yuusuf waxaan uga mahadnaqayaa inuu deeqa bug leh ku yaboohay oo qaadhaana oo xisbiga siiyey 2 baabuur iyo 4 guri waxaan leeyahay suldaan yuusuf xoolo badan ma haysto waxaan leeyahay kuwa xoolo haysto suldaan yuusuf ku dayda ololaha doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland waxaa doortay inaan ugu soo baxo Salaxley waa ku doortay waa hooygii gurigii suudaanka guud ee Somaliland oo barbarkayga taagan allah u naxariistee aabbihiina suldaan maxamed waktigiisii bishii kaambeynka maalin una igama hadhin waxaan halkan ugu walqalayaa safarka guusha ee aynu ku tegi doono madaxtooyada ee aan ku imi Salaxley safarka magaciisa waxaa la yidhaahdaa safarka nabadda midnimada iyo doorashada insha allahu waxaanu dhowaan soo bandhigi doonaa barnaamijkii siyaasiga ahaa ee xisbiga barnaamijka dadku way ka dhergi doonaan bisha 9-keedaanu soo bandhigaynaa waxaan shacbiga Salaxley iyo Somaliland u sheegaya inaan u kala eexan doonin oo aan reerkayga reeraha kale uga eexan doonin laakiin Salaxley waxaan u sheegayaa waa xaq u leedahay weydii waa siiraya oo ay ugu horeyso wadada taariikhiga ee wadada cad la yidhaahdo ee isku xidha Hargeysa iyo Buuxa waxaa kaloo wax laga xumaadaa in dugsigii taariikhiga ahaa ee boardingka ahaa ee Salaxley anigu berigaan dugsiga hoose ku jiray wuu furaa Salaxley mar baa sii beri kaale waa la diiday boarding bal qiyaasta waqtiga yahay وقتها وفرة إما كان موسى الباب ضوء حرية حكومتي إن شاء الله صدق كعصو وهم الله قاضي يعطاني مع ضوء حكومته إن يسكن كفو وحلو ذاك كان Somaliland
ويوضع بيلاده سلحنا نوي بيلاده بلغات كي هورا كلمي واحد كجيري inay dhaan weyn halka ka samayso dhaamkii ugu beeroobay laakiin anigaa samaynaya kaanada Somaliland barnaamijkeega qodobka ugu horeeya waa in la mideeyo shacbiga Somaliland oo khilaafka laga dhex saaro oo la walaaleeyo oo la mideeyo oo wada jirkoodii la soo celiyo oo wax wada lahaanshoodii la soo celiyo Somaliland markay midowdo ayuunbay qarankeedana difaaci kartaa qaran kala qaybsan oo la kala qaybiyey oo loo kala abtiriyey oo qolaba magac loo bixiyey waxba ma difaaci karo waxaanu u taagannahay difaaca qaranka iyo dadka midnimadiisa muuse iyo xukuumaddiisu وأنا ما يابو وأنا كعشوريني وأنا سكدوريني لكن إيه تذكري ما دام ما هي وحين 10 يلا بعطيك في أوغست مدحوين اللي هي لا ذكي ما بتجاني عند الغادي شفتي وأنا كل العيلة كيف حاطون عاي ولي وكران ما يبغى وفدي وحنص على جدي مدحوين الجدي دي بهاي لها طبيعي مقاطع بهاي صوصار أنا بكون فوقاني وحاولي مدحوين دفاع قرنكم ما بقول يا كنت كيلومتر مصوب حبا دفاع قرنكم صدق بقول سركالي عيد أنا لقاها يستوم حابيس المياه دفاع قرنكم ما صدق بقول تكنيكا كسو على الماء أو نوهايو يفيت سيريت وهلا أنت كلا ضل كانوا تريا وأنت حكم لنا هل كان عارفين معي وكانوا معي بقول أحمد وأنا واعي بقول أحمد دينا يعرفون كيسينا إذا هي واحد يقول إياه إنه عارف الناس يبغوا في يعرفون كيسينا وهذا يبقى الكلام بيهاي قف بيهاي البقر كا تحدي قالوا صنايع ولا ليال سومالي لاند ما أنت وكور هيسان حكومة دي سومالي لاند والفشلات قرنكينا والفشل عيدا كيو إنه كور هينا شبك قاري dhaqaalihii way burburisay ammaanadii loo dhiibay way dayaacday waxaan anigu sheegayaa shacbiga Somaliland waa idiin shaqaynayaa idinka shaqaysan maayo balwandadana idinku qabsan maayo idinka la kaxayn maayo isku keendiri maayo dhagxaan nabadgelyo darraa soo dhigi maayo Cerigaba iyo Buurami laakiin dhagxaantii waa ka soo qaadaya kuwii nabadgelyo darrada waa ka soo qaadaya shacbiga Somaliland waa mid ninka kala qaybinaya handhaco ninka kala qaybinaya handhaco ka magacyada u kala bixinaya handhaco Somaliland ha noolaato Somaliland ha midowdo waa inoo 13 November